وحكاق يمحنا كاقبتنا دوني مايو شيطان مداد إغلطك وين حد نك الصومالي وحكويري إنكارك هو دعالي دوني ما ينا أدي وصلنا محد ماذا حاجة نسوا ددم ويدي محد أفكو ودا كبد وين حد هو يدي الصومالي وين حد شوك باكو داعي ورتو محسك حدي كنينكي الصومالية ده ودات كهاي درك ودات كجشنا وحكورا نغمي أي حناقي أي كقاضي أنا قلنا حروف كويري اسكن نصو اسك السياحة إنا كان يديب أنيها ويقادون ويديب أنيها ما شاء الله إلهي أكو بركة أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الكسول وذا برتها محد عبد الله وكل هاي يوتيوب كان وحوق مسارنا سياسة وارتها صويا عايدة يا قبيلة دا waxaan xoog saarnaa arrimaha bulshada oo sooranayno bal barnaamijyo maxaan u soo joogay iyo wacyigelin labadaba dad ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe samayso channel aadan ilaawin pelkana aadna waad ugu mahadsan tahay aan hore u galno oo barnaamijkeeni maxaan u soo joogay oo imika aan rabo inaan idinkeera duwo oo bal idin dareensiyo farqiga u dhaxeeya laba qofood hadalka wanaagsani iyo asluubta wanaagsani inay dadka soo jiito soona dhaweyso daaga sheekadani markaa waxay ku saabsan tahay waxaan maalin dhaweyd la kulmay hooyo Soomaaliyeed oo igu dambeysay 1999kii kala wareegay 2000 markii 2000 la soo galay ayaa igu dambeysay la kulmay markaa way garatay waxay tiri ma xasuustaa sheekadii ay xasuusisay sidaas ay ugu kaliftay aan ka codsaday bal inaan bulshada la wadaago waa sheeko cajiib leh sheekadani waa laba qof marka midabka iyo sidaad u eg tahay ma aha wanaagaaga iyo akhlaaqdaadu ma aha dharkaad xiran tahay ee akhlaaqdu waxa weeye waxa ka muuqda haybada aad afkaaga ka soo baxaya udgoonka afkaaga ka soo baxaya weeye akhlaaqda iyo wanaaga ay dadka aad ku soo jiidanayso marka waa laba qof labaduba waa wadaado mid labaduba wax xiran yihiin dharkii ay Soomaalidu u yaqaanaan wadaad haddaad Egypt ku xukunool haddaad Egypt tagtid Qaahira ama Lebanon tagtid ama aad tagtid Jordan waxa ku nool qowmiyada kala duwan iyo diimo kala duwan laakiin waxay ka sameeyeen dharka waxa jira muslimiintaas si kala baxda waxa kale oo jira Orthodox iyo Catholic iyaguna way leeyihiin laakiin waa Egyptian oo isku dhar bixireen marka dharku iyo marnaba ku sirin dharku waxa u maraynin diin marka sheekadan waa sheeko iga yaabisay qalbigaygana marmar ku soo jiidata waa nin Soomaaliyeed waa wadaad Soomaaliyeed oo caanka ah bulshada caalamka Soomaalida geyga Soomaalida caanka ah oo wada garanaysa iyo wadaad kale ay sheekadan ku socota marka labada wadaad ayaan farqigooda ay gabadha sida u soo kala jiiteen baan doonayaa inaan idin wadaago oo barnaamijkii maxaa u soo joogay marka waa sanadka waxay gabadhaasi hooyo Soomaaliyeed weeye waxay u duushay wadanka Ingiriiska cunug yar bay wadataa cunug yar waa yara qalqaali waxay hooyadaas xiran tahay dirac iyo garbasaar ama shalmad hadba sidaad u taqaanid ay hooyadaas xiran tahay hooyadii markay diyaaradii soo kortay ayaa inankii wuxuu bilaabay inuu fadhiisan ayuu wuxuu bilaabay qaylo orod buuq meel kasta dadkii oo dhan oohin hooyadiibu ka boodboodayo rafaad taasi u haysataa hooyadii waqtigaa waan ognahay way soo hooyo soo labisatay shalmad iyo dirac iyo soo gashtay boolbar iyo wixii wadina saacad gudaheed dhigid iyo rafaad iyo daal ayay kala kulantay inankaa yar sheekadu taama hooyadii waxay u baahatay waqtigan Suuriya geesaysa u egtay waxay aragtay wadaad Soomaali ah oo markaa khamiiskii carabta xiran ay aragtay wadaadka waxa la fadhiya qof dumar ah oo ajnabi ah ayaa dhinaciisa fadhiya marka laba la isku la fadhiya waa diyaaradan yar way soo dhaqaaqday waxay tiri assalaamu calaykum uu eegay uu salaamay waxay tiri inankan iisii qabo Suurigan tagayaa wuxuu sameeyay wajigii iska daa inuu la hadle
dhinacaan uu eego yidhi alaa xawla walaa quwata ma doonaya inaan ku eego inaan wax kaa ilmahaana kaa qabtana dooni maayo shaydaannimadaada igala tag way naxday waxay tiri walaal inankan dad kale kuma aaminaya iga qaba iyaduna xanuun badan oo maskaxda waqtigeeda waxa haya dhibaatooyin fara badan oo diyaaradii bay waxay aaminsanayd markaa dee sheekooyinka marka dambaan iiga sheekayn doonto in gaaladanaba ka qaadan doonto markaa taleefono la diradooda dacwo badan baa socotay markaa waxay doonaysay dadkan oo dhan bayba ka shakisan tahay hooyadu ninkan soomaalida ee aamintayda ninka soomaaliga wuxuu ku yiri inkaari kugu dhacday dooni maayo inaa adigoo sidana maxaad madaxaagan usoo dadan weyday maxaa afku uga dhacay gabadhi way naxday hooyadii soomaalida way naxday shock baa ku dhacay iyaduna way adkaysan weydo hadal adag bay ku tiri niman halkaa fadhiyo caraba oo dhinac fadhiya sheekada maqlayay markaa qayladan ay isweydaarsadeen markaa waxay ku yiraahdeen orodoo aan noo dhiib inankii yaraaba ciyaarsiiyana way way qabteen way la sheekaysteen oo way yara maaweeliyeen suuli way tagtay danaheed xaajadeedii soo dhamaystay way soo noqotay way iska fadhiisatay xana gabadhi iyo ya ayay ka qaaday wadaadkii isku haleynaysay waxay kasii qaaday inkaar inay tusto waxuu yahayba markaasay marba dhinac u martaa iyadoo sheekadaas diyaaradii bay ka degtay iyadoo sidii u daalan iyadoo rafaadsan ayay halkaa ku degtay ingiriiskii bay ku degtay 3 cisho kadib way markan waa waqtigan diyaaradda ana soo koray diyaaradda waxaa nala saaran nin imika magacaabi maayo igama codsan ma oga uu iska ilaawo waa wadaad soomaaliyeed oo bulshada soomaalida wada taqaano norwayna deganaa welina dee degan yahay laakiin hadda ka guuray wadaadkaas soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo waqtigaa weliba anagoo dadka saaxiibka ahayn oo table tenniska iyo bilyaardiga iyo haddii la yidhaahdo jesta ayuu aada xariif ugu ahaa waa nin dhalinyaro ah waqtigaa inantii hooyadii baa soo kortay sideen markan anagu ma garanayno sheekada inooga sheekayn doontaa soo fariisatay markay aragtay wadaad horena oo aragtay iyo aniga horta maskaxdii ninkii soomaaliyeed ee wadaadka ahaa ee dharkii wadaadka gashana wuxuu kula dhaqmay ayay xanaaqii ay ka qaaday anagana na huruuf iyo macnay inayna salaamo xataa waxaan isku daynay inaan salaamo anigu iyo sheekhba nagamay qaadan salaanteeda marba dhinac bay martaa ilmihii baa haddana wuxuu bilaabay sidii wuxuu bilaabay buuqii oo dadku dhan baa maqlayay ordayaa waa yara qalqaali adugu marka way soo qabataa way orodaa way soo qabataa way orodaa kabadha dheer iyo waxbay xirnayd mashaakil sheekhan dhinacayga horeeya fadhiya ayaa aada u eegay aada buu u eegay wa suuli bay u baahataa ilmihii bay dad kale wuxuu sameeyey waa sheekh wuu soo kacay markaasuu yidhi assalaamu calaykum magacayga waa hebel iska waran way eegtay way huruuftay nabad bay tiri wuxuu ku yidhi iska naso iska seexo inankan ii dhiib aniga way u qaadan weyday ma ii dhiib aniga maasha allah ilaahay ha ku barakeeyo inankii buu yara ciyaarsiiyey waa nin dee ilaahay baray inankii baa yara maaragtay hooyo soomaaliyeed 24 hours oo markaa wuxuu u dhibsanayaa wuxuu doonayaaba maaragtay dee niman wuxuu iska dhigayaa maaragtay waa nin kale oo maaragtay la kaftamo la ciyaar inankii buu la ciyaaray uu soo qabtay dhabta ku fariisiyey nacnaciyo waxbuu siiyey waxbuu u dalbay halkaasaan kala socdaa kana waan soo salaanay laakiin dee waa la kala duugsan diyaaraduna way buuxdaa inankii buu soo u fariisanayay u seexday hooyadii baa soo dhaqaaqad wuxuu yidhi iska naso waxay tagtay xaajadeedii bay dareemtay way seexatay iyaduna diyaaraddu waxay soo socotaa laba saacadood ayay usoo socotaa markii uu hurdadii inankii soo dhamayso sunnaxo biyo iyo qabow iyo wax la siiyo meeshiisii jiifo iska raaxaysanayo ayaa inankeedii iyadoonbaa fadhiyey wuu soo kacay inankii buu soo qaaday wuxuu ku yidhi kula fadhiisan karaa agtaada ma soo fadhiisan karaa way yaabtay way u qaadan weyday way rumaysan weyday ha waxay tiri soo fadhiiso agtayda ila soo fadhiiso iyadoo yaabtay oo argagaxday oo maaragtay xishootay oo yaabtay
ولا صفر يستو هو شيكي دوني ذا عادية ما شاء الله الحمد لله لندن ما تكتم أنا لندن ما كيمدو ما شاء الله ما أصلا دقنتها ها أصلا دقنها أنا أصلا دقنها وأنكو قرنا يا بيترو الحمد لله ما شاء الله وحوشي كي شيء كوين قصر بدن وحوشي كي شيء ما بقى قاعدين بمال كلام قبل لي قصر iyo waxaan maqlaynaa dhaq iyadoo qoslaysa وفدجي وحوشي كي نبي محمد عليه الصلاة والسلام حاسس كيسي إنه العيار جري لكفت مجري نبرك كعيرتي برت مجري أنا ما أرسل أرد جرين وحيالها سوى شيكي وشيكي عرورته عيارته عرورته قروحه عرورته هذا فرحتك سيحدان هي بدأ أي تاي عرورته وشيكي وشيكي دينته يوحي كقبته فرحة وناقة سولوينت بالشدة اسكو حركة بالشدة أيوه وشيكي مرادي دين إيه مدح إذا بكونوا مشغولين بقى waxaan sii arkayay marka anigu inantiyo shalmadii ama garbasaarkii yara madaxa halkan ku qabatay oo in yar halka ka sii deysay oo yara marka eegayso dhagtii iyo madaxii dabooshay ayaan sii arkay kama waale ku qosli wuxuu uga sheekay taariikhda islaamka wuxuu uga sheekay taariikhda malaadiga dunida wuxuu uga sheekay farxaddu in shaqada faa'iidada leedahay ay u leedahay diinta waxay ka tiri shaqada wuxuu uga sheekay wada shaqaynta bulshada iyo qof inaad tiraahdo assalaamu calaykum iska waran maanta sidee tahay ama diyaarad saarno ama meel kale saarno ayuu uga sheekay wuxuu uga sheekay wanaag wuxuu yahay wuxuu uga sheekay in the end ma sha Allah xijaabku wuxuu yahay ayuu uga sheekay wuxuu uga sheekay wax walba oo markaa labada saacadood uu isagu ku soo jiidan karo danta uu wataa waxa weeye inuu gabadhan jeclaysiiyo wanaag oo aad ka muuqatay araggeeda iyo wajigeeda markaanu salaameynayna salaantii ciriir ku ahay waxay bilowday inay ka sheekayso taariikhdeedii iyadoo privatekeedana ilaalinaysa waxay bilowday inay ka sheekayso wanaageedii gabadhii adresskii uu siiyey taleefonkii bay kala qorteen laba cisho kadib waxay la soo hadashay masaajidka taleefonkii buu ka qabtay uusan salaameen masaajidkii bay kusoo xirmatay waxbayaan idinku daalina maanta diintii bay meesha ku baratay diintii bay isbartay diintu waxay ka qabto wax walba xijaabku wuxuu yahay wanaagku wuxuu yahay ixtiraamku wuxuu yahay waa ururinta dadka bulshada waxay tahay ayay baratay maxaa yeelay wadaadkan Soomaaliga ayaa ilaahayga baray cilmiga ma baray cilmi nafsiga ilaahay baray diiniga uu qabla gareeyo saa u soo jiitay iyo wadaadku sheegii hore ayaa isbarbar dhigtay markaa maalintii dhaweeytay soo qabatay ugu tirma xasuustaa inkastoo YouTube ka arkay aniga waxay ugu ka dambeysay maalinta marka waxaan ku keenay oo rabaa inaan la wadaago hadalka wanaagsan ramxadda wanaagsan deeqsiga wanaagsan raxmadda iyo wanaagga iyo ixtiraamka iyo dulqaadku wuxuu soo jiitaa bulshada hadalka xun in waji xumaanta xuneed sad qofka u eegtana uu ka sii dheereeyaa bulshada marka anigu mar walba waxaan jecelahay bulshada Soomaaliyeed inay halahaato siyaasadda xaggeeda ixtiraamka kala dambeynta ismaqalka wanaaga waxa soo dhani uu ku soo jiidanaya qofku waxaad ku leedahay marka mahadsanid hadalkii wanaagsan aad ii sheegtay lacag waa la isasiyaa xumatro anigoo lacag inaan ku siiyay wax ku siiyay laakiin hadal xun kugu daray weligaa ilaa xasuusin maysid lacagtii waxaad xasuusanaysaa hadalkii xumaa ku yaray laakiin haddaan hadal wanaagsan oo ixtiraam oo dulqaad oo wanaagsan oo kugu soo jiito waxay noqonaysaa marka eeg labadaasuba isku dhar bay xirnaayeen labadaasuba wadaadka aad sidaa u taqaanaan bay u akaayeen laakiin aniga bulshada waxa wadaadii ahaa ka aan markaan fadhiyay arkayay ixtiraamkiisa iyo qosolkiisa ka muuqday ka ila ciyaaraya waxaan jecelahay ila jecel oo ila fadhiisanaya oo markuu waxaan jecelahay ila ciyaaro kadibna ay tuso yiraahdo waxani dhinacan kalena eeg marka mar walba angle kalena ka eeg waxaad aaminsan tahay the other angle eeg ha ku caaynin haddaad aragto qof aaminsan nooc adiga ka duwan ha ku caaynin isku day inaad horta la ciyaarto noociisa timaado kadibna aad tiraahdo bal heede angle kana ila eeg saas daraaddeed baan jeclaaday maanta inaan bulshada la wadaago barnaamijyo badan baa noo soo socda runtii oon aad ula yaabi doontaan mar kale waa walaalkii Mahad Cabdulle asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadalka wanaagsani waa dawo hadalka wanaagsani waa deeqsi raxmad baan isku ognahay wanaag sidaa ay nabadgelyo
bye bye